بسم الله الرحمن الرحيم جمعة وناكسن ولحية لباتنك بشا جون سنتك لبكن لباتني اللح أو كوبهجن كوبية طبنك بشا محرم سنتك كن أفر بقول أفرتني السديد تاريخ الهجرية كسو هذا مركله إيا برامجكي وركما أنت قضبضا ندين كوبهينا وحا كمدا maraykanka oo saldhigyadiisa military kala qaxaya dalalka dariska la ah Iiraan iyadoo qaar ka mid ah loo radayo Israa'iil tani waxay ka dambeysay kadib markii Iiraan ay burburisay oo si xun ay u garaacday saldhigyada iyo xarumaha xasaasiga ah ee maraykanku uu ku lahaa wadamada khaliijka iyo kuwa kale ee gobolka warbixin cusub oo maanta soo baxday ayaa shaaca looga qaaday qasaaraha inta uu dhan yahay saldhigyada ciidan ee ugu badan ee waxyeelada ay soo gaartay iyo go'aamada arrinkan la xiriira tani sidoo kale waxay ku soo aadaysaa iyadoo Iiraan mar kale maanta ay ku celisay in joogitaanka ciidamada Maraykanka ee bariga dhexe uu yahay ubuucda mushkiladda gobolka ka aloosan warbixin iyo falaqayn arrimaha ku aadan ayaan idinku soo gudbinaynaa qaybta dambe ee barnaamijka wararka kalena waxaa ka mid ah madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku celiyay in Iiraan marnaba aysan yeelan doonin hub nuclear ah Iiraan oo si cad u sheegtay in dhaqdhaqaaqyada diyaaradaha Israa'iil ee hawada wadamada dariskeeda ay ku yihiin qatar toos ah oo amnigeeda ka dhana militariga Israa'iil oo qirtay qasaaro hor leh oo ciidankooda ka soo gaaray hawlgalla Xisbullah ka fulisay koonfurta Lebanon weerar argudasho ah oo Israa'iil ay ka fulisay Lebanon ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac dadka rayida soo gaaray hogaamiyaha Xisbullah oo sheegay in laga guuleystay mashruucii Israa'iil iyo Maraykanka isla markaasna ay galeen marxalad cusub Kuuriyada Waqooyiga mar kale maanta waxay tijaabisay gantaalo iyadoo Kim Jong Un uu isku diyaarinayo dagaal dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinku soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir oo aadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka jimca mubaarak mar kale ayaan idin leenahay maanta waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda gacanka Kuuriya iyagoo hub urursi iyo hadallo adag oo xaraf leh ay hawada isu marinayaan mas'uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi kuwa Maraykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxaa goobjoog oo ka noqday maanta tijaabooyin nidaamyo casri ah oo madaafiic iyo gantaalo isugu jira oo ay sameeyeen ciidamada dalkiisa sida ay baahisay wakaaladda wararka afka dawladda ku hadasha ee KCNA tilaabo lagu tilmaamay fariin bandhig awood ah oo loo dirayo Kuuriyada Koonfureed KCNA ayaa sheegtay in Kim oo marqaati u noqday tijaabooyin hub waaweyn oo ay fuliyeen hay'adaha cilmi baarista difaaca kuwaasi oo qayb ka ah qorshaha 5 sano ee horumarinta ciidamada dalka tijaabooyinkan ayaa lagu sameeyay gantaalaha nooca dhumucdoodu ay tahay 240 milimitir oo la casriyay kuwaasi oo gaari kara masaafo dhan 90 kilomitir madaxyo dagaal oo loogu talagalay gantaalada balastiga ee xeeladisan iyo madaafiicda ishagaha oo cabirka dhumucdoodu ay tahay 155 milimitir kuwaasi oo gaari kara 65 kilomitir Kim Jong Un ayaa muujiyay ku qanacsanaantiisa natiijooyinkan isagoo sheegay in tijaabooyinku cadeeyeen horumar laga sameeyay kordhinta awoodda dabka ee xadka koonfureed iyadoo la adeegsanayo aalado otomaatig ah oo kala duwan kuwa masaafada dheer oo leh saxnaan sare sidoo kale wuxuu ku celiyay in siyaasadda isdifaaca ee Pyongyang aysan ku koobnayn xoojinta awoodda difaaca oo kaliya balse sidoo kale ay tahay in la dhiso waxa uu ku tilmaamay awood weerar oo dila ah oo burburin karta cadowga si looga hortago
cid kasta oo khatar ku ah dalka. Kim ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo howlgeliyo nidaamyada casriga ah ee weerarada fog, isagoo carabka ku adkeeyey in horumarinta ciidamada madaafiicda iyo gantaaladu ay weli tahay mudnaanta ugu weyn ee qorshaha 5 sane ee difaaca. Abuurista walaac iyo cabsi. Yang Moon-jin oo horey u soo noqday agaasimaha jaamacadda daraasaadka Kuuriyada Waqooyi ee magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in xogta ay Pyongyang faafisay ay ahayd bandhig awood oo si gaar ah loogu wajahayo Kuuriyada Koonfureed. Wuxuu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay si joogto ah u muujiso awoodeeda military si ay shacabka ugu abuurto walaac iyo cabsi, taasi oo qayb ka ah istiraatiijiyadeeda ka hortagga cadowga. Kuuriyada Waqooyi oo wajahaysa go'doon diblomaasiyadeed iyo cunaqabatayno caalami ah sababo la xiriira barnaamijkeeda hubka nuclear-ka ayaa marar badan waxa ay sheegtay in ay sii wadi doonto horumarinta hubka nuclear-ka si ay uga hortagto Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Arbacadii, wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa tibisay in Kim Jong-un uu ku dhawaaqay qorshe lagu xoojinayo ciidamada badda ee dalka iyadoo lagu qalabaynayo hub nuclear ah, isla markaasna la dhisayo maraakiib dagaal oo culeyskoodu gaarayo 10,000 oo tan. Talaadadii toddobaadkan, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in dadaalada casriyeynta military ee Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ay gobolka ku riixayaan dagaal nuclear. Labada Kuuriya ayaa farsamo ahaan weli ku jira xaalad dagaal, maadaama dagaalkii u dhaxeeyay ee dhacay sanadihii 1950 ilaa 1953 uu ku dhamaaday heshiis xabad joojina, balse aan la gaarin heshiis nabadeed oo rasmi ah. Labada dal waxaa kala qaybiya aag ka caagan ciidamada oo ku yaala xadka. Tani markii uu fashilmay shirkii sanadkii 2019 u dhaxeeyay Kim Jong-un iyo Donald Trump, kaas oo lagu kala aragti duwanaaday arrimaha hubka dhigista nuclear-ka iyo qaadista cunaqabataynta. Maamulka Pyongyang ayaa si isdaba joog ah ugu dhawaaqayay in Kuuriyada Waqooyi ay tahay dal haysta hubka nuclear-ka, go'aankaasna dib aan looga laaban doonin. Waa tahay warkaas inta aynu kaga gudubno xagga bariga dhexe, haatan aynu u gudubno gaar ahaan xiisada colaadeed ee u dhaxaysa Xisbullah iyo Israa'iil. Intaanu idiin soo gudbin militariga Israa'iil oo qirtay khasaare soo gaaray askartooda, waxaynu ku hormaraynaa xogayaha guud ee ururka Xisbullah Sheekh Naciim Qaasim ayaa maanta daboolka ka qaaday in dhidibada iska caabinta iyo Iiraan ay jibiyeen mashruucii Israa'iil iyo Mareykanka, isla markaasna la galay marxalad cusub oo loo baahan yahay in lagu dhiso guulo dheeraad ah. Khudbad uu jeediyey oo laga sii daayay telefishinka ayaa waxa uu ku sheegay in isafgaradka dhex maray Iiraan iyo Mareykanka uu yahay caddayn rasmi ah oo muujinaysa guuldarrada Mareykanka iyo Israa'iil. Wuxuu sidoo kale ku baaqay in ciidamada Israa'iil si shuruud la'aan ah uga baxaan koonfurta Lubnaan, isla markaasna ay joojiyaan weerarada cirka iyo dhulka. Qaasim ayaa ku nuuxnuuxsaday in Israa'iil ay ku sugan tahay Lubnaan iyadoo doonaysa inay qabsato dhul, taasi oo qayb ka ah mashruuca loo yaqaan Israa'iisha weyn, isagoo carabka ku adkeeyay in Xisbullah aysan aqbali doonin in xiriir diblomaasiyadeed lala yeesho Israa'iil ama la soo afjaro colaadda u dhaxaysa labada dhinac. Isagoo ka hadlayay khilaafka u dhaxeeya Xisbullah iyo dowladda Lubnaan, waxa uu sheegay Sheekh Naciim Qaasim in dowladda looga baahan yahay inay midayso shacabka si looga hortago Israa'iil, isla markaasna kadib ka bixitaanka ciidamada Israa'iil la dejin doono istiraatiijiyad dhammaystiran oo la xiriirta amniga qaranka. Qaasim waxaa sidoo kale uu taabtay in Xisbullah ay soo dhaweynayso dalalka Carabta iyo kuwa kale ee ka qayb qaadanaya dib u dhiska Lubnaan, soo celinta madax bannaanideeda iyo ka saarista ciidanka Israa'iil dhulkeeda. War kale oo colaadan la xiriira, taliska ciidamada Israa'iil ayaa qirtay in 4 askari oo ay ku jiraan 2 sarkaal ay ku dhaawacmeen iska horimaad ay la galeen
dagaalamo ka tirsan ururka xisbullah oo ka dhacay koonfurta lubnaan habeennimadii xalay. ciidamada ayaa loo qaaday cisbitaal si loogu daaweeyo dhaawacyadooda waxaana la ogeysiiyey dhaawacooda qoysaskooda. baaritaan horodhac ah oo ciidanka uu sameeyey ayaa lagu sheegay in abaara 10kii fiidnimo ee xalay deegaanka Beit Yahuun dagaalamo ka tirsan xisbullah oo ku doomanayay dhisme uu bam gacmeed ku weeraray ciidamada Israa'iil taasi oo sababtay dhaawacyada soo gaaray askartan. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in ciidamada Israa'iil daqiiqada gudahood rasaas ay ku fureen goobta isla markaasna ay dileen weeraryahankii la sheegay inuu geystay weerarka. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale waxay ku andacoodeen inay beegsadeen goobo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan xisbullah oo ku yaala koonfurta Lubnaan. isla wararkan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay awood u leeyihiin inay si degdeg ah uga jawaabaan qatar kasta oo ka timaada gudaha Lubnaan. wargeyska iyo dhaco taxaranood ee ka soo baxa Israa'iil ayaa waxa uu soo xigtay ilo xogogaal ah kuwaasi oo sheegaya in Netanyahu hadalkan uu ka sheegay kulanka ay lahaayeen golaha kooban ee amniga ee wasiirada Israa'iil oo qabsoomay shalay. Netanyahu ayaa sidoo kale sheegay in wasi hadalku dhigay Mareykanku uu fahamsan yahay xuquuqda Israa'iil ay isku difaacayso isagoo hoosta ka xariiqay in Israa'iil ay sii wadi doonto tillaabooyinka ay u aragto inay laga maarmaan u yihiin sugidda ammaankeeda marka ay la kulanto khataro degdeg ah oo ka imaanaya Lubnaan. wararkii ugu dambeeyay ee colaadan wasaaradda caafimaadka ee waddanka Lubnaan ayaa sheegtay in 2 qof ay ku dhinteen halka qof saddexaadna uu ku dhaawacmay duqeyn Israa'iil ay la beegsatay gaari marayay deegaanka Mifdoon ee gobolka Nabatiya ee koonfurta waddankaasi Lubnaan. waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Mareykanka iyo Iiraan. war weyn ayaa soo baxay. warkan wuxuu la xiriiraa Israa'iil ayaa waxa la sheegayaa in la geyn doono saldhigyada Mareykanka qaar ka mid ah waxaana laga qaxinayaa wadamada khaliijka. wararkaas iyo Iiraan oo culus soo saartay iyo Trump oo hadlay iyo qodobo kale intaan u gudbin ayna ku hakanno qadar xayeysiina. soo dhawaada markale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka maanta oo toos idinkaga imaanaya stuudiyahayaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube, Facebook, Twitter ama X iyo Telegram. warbixino qoraal ah warar faclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. hagaag haatan waxaynu u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda marinka Hormuz iyo Iiraan iyo Mareykanka. intaan idin soo gudbin falaqaynta aynu eegno wararkan kuwoodii ugu dambeeyay ee soo dhacay saacadihii la soo dhaafay. xarunta howlgallada military ee ciidamada Iiraan ee Qaatimul Anbiya ayaa shaaca ka qaaday in joogitaanka iyo dhaqdhaqaaqyada diyaaradaha military ee Israa'iil ee hawada qaar ka mid ah dalalka dariska la ah Iiraan ay yihiin khatar toos ah oo ka dhan ah amniga dalka Iiraan. xarunta waxay intaasi ku dartay in Tehran ay xaq u leedahay inay ka jawaabto faralka khatarta ku ah ee maamulka sida hadalka loo yiri Sahyuuniyadda haddii Mareykanku uusan awoodin inuu xakameeyo Israa'iil. isla wararka Iiraan wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Saciid Khatibzadeh ayaa sheegay in marin amaan ah oo laga helo marin biyoodka Hormuz lagu xaqiijin karo oo kaliya iskaashiga lala sameeyo Iiraan. waxaana uu sheegay in aysan suurtagal ahayn wadooyin isbarbar socda iyo go'aano la gaaro kuwaasi oo ka baxsan mowqifka Tehran. waxaa intaasi uu ku daray in qaab dhismeed kasta oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan Hormuz uu yahay in marka hore la sameeyo isku duwid lala yeesho Iiraan isla markaasna waafaqsan qodobka 5 ee heshiiska isafgaradka. hadalladan ayaa yimid kadib bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan kaas oo lagu xaqiijiyay in waxa lagu heshiiyey ee qodobka 5 ee heshiiska isafgaradka u dhaxeeya Tehran iyo Washington uu yahay saldhig la ansixiyay oo lagama maarmaan u ah isu socodka maraakiibta ee marin biyoodka muhiimka ah. Iiraan waxay ka soo horjeedaa in si ka baxsan loo isticmaalo marinka Hormuz. dhanka Mareykanka madaxweyne
Donald Trump ayaa sheegay in Iran aysan yeelan doonin hub nuclear ah isagoo ku nuuxnuuxsaday in Tehran ay 100% ogolaatay arrintaasi waa sida hadalka uu dhigay Trump ayaa intaa ku daray in qayb ka mid ah lacagaha Iran loo adeegsan doono oo lacagaha la fasaxayo iibsashada xaddi badan oo sarreenka digirta iyo galleyda laga soo saaro Mareykanka taas kadibna loo diri doono Iran walow arrintaasi ay beeniyeen mas'uuliyiinta Iran oo ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka Mohammed Baqir Qaribaf madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyay intii labadana qayb ka tahay heshiisyada iyo isfahamka u dhaxeeya labada dhinac isagoo muujiyay in Mareykanku uu doonayo in Iran ay hesho badeecooyin muhiim ah oo dhinaca cunnada ah isla markaasna aanay sii horumarin barnaamijkeeda nuclearka wararka Iran aan dib ugu laabanay Iran ayaa sheegtay in bayaanka wadajirka ah ee ay soo saareen Mareykanka iyo dalalka ku boobay golaha iskaashiga khaliijka ee loo yaqaan GCC uu xambaarsan yahay mowqifyo faragelin mas'uuliyad darro ah oo kicin ah iyadoo sheegtay in joogitaanka military ee Mareykanka ee khaliijka uu yahay xudunta amni darrada iyo kala qaybsanaanta gobolka ka jirta bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa waxaa lagu sheegay in Tehran ay sidoo kale ku celinayso mowqifkeeda ah in marinbiyoodka Hormuz lagu maamuli doono talo wadajir ah oo kala dhaxaysa Oman iyadoo la raacayo shuruudaha isafgaradkii Mareykanka lala gaaray haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falanqaynta oo aynu aalaba ku soo qaadano macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan khubarada arrimaha militariga arrimaha dagaalka militariga iyo istiraatiijiyadda sidoo kale xubintan waxaynu ku soo qaadanaa xogaha ay bixiyaan khubarada arrimaha sirdoonka siyaasadda iyo diblomaasiyadda iyo sidoo kale waxyaabaha warbaahintu ay baahiso ama ay qorto xubintan maanta waxaynu ku eegaynaa Mareykanka oo saldhigyadiisii kala qaxaya wadamada khaliijka ee dariska la ah Iran arrintan waxay ka dambeysay kadib markii Iran ay burburisay saldhigyadaasi in badan oo kamid ah waxa kale oo dhacay Iran inay hadda taagan tahay waa in saldhigyada Mareykanka la ka fogeeyaa haddaba aynu eegno warbixin amuurtan la xiriirta Mareykanka ayaa ka fiirsanaya in uu xarumihiisa military ee bariga dhexe ee Iran duqeymaha ay ku burburisay uu ka raro halkaasi isla markaasna loo raro dhanka galbeed ee gobolka oo ay ku jirto Israa'iil si loo yareeyo halista gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran tilabadan ayaa timid kadib markii weeraro Iran ay qaaday ay gaarsiiyeen saldhigga kaliya ee ciidanka badda ee Mareykanku uu ku leeyahay gobolka khasaare lagu qiyaasay 400 milyan oo dollar kaas oo wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee loo yaqaan Pentagon ay si weyn u shaacin sida uu qoray wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa waddanka Mareykanka weerarada aargudashada ah ee Iran ayaa waxay yimaadeen kadib bilowgii duqeymihii Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran 28 bishii February waxaana lagu beegsaday xarumo military oo Mareykanku uu ku leeyahay gobolka waxaana ku dhintay 13 askari oo Amerikaan ah halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen dhismaha ay waxyeeladu soo gaartay ee saldhigga taageerada howlgalka ciidanka badda ee loo yaqaan NSA Bahrain ayaa qiyaastii 240 kilomitir wuxuu xagga koonfurta ka xiga Iran waxaa ka mid ah xarunta taliska ciidanka badda ee shanaad xeryo ciidan baqaaro dhowr ah iyo haan biyaha lacabo lagu kaydiyo sida uu sheegay wargeyska Wall Street Journal isagoo soo xiganaya sawirro dayax gacmeed iyo kuwa lagu baahiyay baraha bulshada sida ay sheegeen ciidamada Mareykanku cidna kuma dhiman saldhigaasi weerarka lagu qaaday wargeysku wuxuu sheegay in qiyaasta khasaaraha lagu saleeyay warbixino la xiriira qandaraasyada wax iibsiga iyo qaabka qiimeynta qarashaadka ee Pentagonka si dadweynahana loo heli kara qiyaastii waxay ka koobnayd oo kaliya qarashaadka dhismaha wargeysku wuxuu soo xigtay falanqeeyo ka tirsan xarunta macadka daraasaadka caalamiga ah iyo istiraatiijiyadda ee magaciisa loo soo gaabiyo CSIS waxaana uu sheegay in khasaaraha dhabta ahi uu si aad ah uga badan karo qiyaasaha imika la sameeyay tusaale ahaan
sida uu sheegay macadka CSIS laba xarumood oo isgaarsiinta dayax-gacmeedka oo Iiraan ay burburisay bilowgii dagaalka ayaa midkiiba qiimihiisu wuxuu ku dhow yahay $20 milyan. waxyeelada soo gaartay saldhigga NSA Bahrain ayaa sababtay in Maraykanku ka fiirsado dib u habayn lagu sameeyo saldhigga oo ay ku jirto in xarumaha taliska loo raro dhulka hoostiisa iyo in dib aan loo dhisin qaar ka mid ah dhismayaashii burburay sida ay sheegeen saraakiil Maraykan ah oo xogogaal u ah arrintan kuwaasi oo wargeyska uu soo xigtay. saraakiisha waxay sidoo kale sheegeen in Maraykanka laga yaabo inuu yareeyo joogitaankiisa military ee Kuwait iyo Saudi Arabia isla markaasna qayb ka mid ah ciidamadiisa u raro dhanka galbeed ee gobolka Bariga Dhexe kadib markii Iiraan ay beegsatay xarumaha military ee labada dal ee Carbeed. sida ay sheegeen laba ka mid ah saraakiishaasi mid ka mid ah meelaha la tixgelinayo ama laga fiirsanayo waa Israa'iil halkaasi oo tobanaan diyaaradood oo dagaal oo Maraykanku uu leeyahay ay yaalaan garoonka dayuuradaha Ben Gurion tan iyo ka hor xitaa bilowgii dagaalka Iiraan arrintaasi oo caqabad ku noqotay safarada Israa'iiliyiinta. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa wajahaya dhaleecayn xooggan oo ka imaanaysa gudaha Maraykanka oo xitaa ay ku jiraan xubno ka tirsan xisbigiisa jamhuuriga taasi oo la xiriirta qasaaraha sii kordhaya ee dagaalka Iiraan. dagaalka ayaa sidoo kale sababay korar caalami ah oo ku yimid qiimaha tamarta kadib markii Iiraan ay xanibtay marin biyoodka Hormuz oo ah marin muhiim u ah dhoofinta shidaalka. xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Pete Hegseth ayaa codsaday ku dhawaad $80 bilyan oo miisaaniyad dheeri ah si dib loogu buuxiyo agabka difaaca Maraykanka kadib dagaalka kaas oo joogsaday 8 Abriil markii lagu dhawaaqay rasaas joojin. Maraykanka iyo Iiraan ayaa toddobaadkii hore waxay gaareen heshiis is-afgarad ah oo lagu bilaabayo 60 maalmood oo wada hadal ah si loo soo afjaro colaadaha ka taagan gobolka. Israa'iil waxay ku andacootay inaysan qayb ka ahayn heshiiska is-afgaradka ah iyo wada hadallada socda. waxaana mas'uuliyiinta Israa'iil ay dhaliileen heshiiskaas oo ay markaasi ku tilmaameen inuusan meesha ka saareen qatarta barnaamijka nuclear-ka Iiraan isla markaasna uu ku baaqayo in la joojiyo howlgallada Israa'iil ee ka dhanka ah ururka Xisbullah ee reer Lebanon. sidaas darteed Israa'iil waxay ku andacoonaysaa in heshiiskaasi qayb aysan ka ahayn laakiin Iiraan waxay ku adkaysanaysaa qodobka koowaad ee is-afgaradka inuu dhigayo in la joojiyo colaadda ka socota gobolka oo ay ku jirto Lebanon. hadda marka arrintu waxay maraysaa Maraykanku wuxuu ku leeyahay 8 saldhig wadamada Khaliijka laga soo bilaabo Kuwait, Bahrain, Qatar, Sacuudiga iyo Oman. waxaa sii dheer kuwa kale ee ku yaala Iraq, Syria, Jordan iyo Israa'iil iyo Turkiga. hadda marka waxay leeyahay horta Maraykanku wuxuu hubaa Kuwait iyo Sacuudiga la rari doono. Bahrain waa saldhig weyn saldhiggan lagu leeyahay NSA ama xarunta taakureynta howlgallada waa qayb ka mid ah taliska dhexe ee shanaad ee CENTCOM ee ciidamada Maraykanka. xaruntaas ayuu qayb ka yahay saldhiggani waana meeshaan hadda gubatay oo arkaysaan calaamada la saaray. marka warbixintii ka soo baxday wargeyska Wall Street Journal waxay leedahay Israa'iil ayaa loo badanayay in loo rari doono saldhiggadani. arrintan ma qaxba oo dagaalkii qosaysa mise waa shuruudaha Iiraan ay leedahay saldhigyada Maraykanka waa in agteena laga fogeeyaa waayo saldhiggan intee buu jiraa 240 kilomitir ayuu jiraa Iiraan. muxuu yahay doolsho carab saaran buu yahay ama keeg saad u taqaan muxuu u baahan yahay inay calaalisaa macnaheedu waa u fududahay Iiraan inay beegsato halkaas. marka arrintu waxay u muuqanaysaa isbedel uu ku imaanayo gobolka Bariga Dhexe joogitaankii Maraykanka. waa halkii Soomaalidu ka tiri wax badso wax beel bay leedahay. Maraykanku wuxuu rabay Iiraan inuu qabsado gobolkan waxa uu doono ka sameeyo Israa'iil baarqab ay ka noqoto laakiin hadda arrintu way isbedeshay waa ka roga laba saar.
waynu arki doonaa waxa ay ku dambayso. Inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii wararka maanta. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. Si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. Inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.